Mr. President, honorable head of states and governments, dignitaries, and ladies and gentlemen, it's a great honor and privilege to address you on this 74th session of the United Nations General Assembly. It's indeed my sincere belief that the General Assembly is vital in galvanizing multilateral efforts and actions for poverty eradication, quality education, climate action, and promoting inclusivity in all its forms to advance our global agenda for people-centered development, for common progress and prosperity. We in this assembly, more than ever before, must realize and work towards ensuring no one or nation is left behind in the pursuit of progress and prosperity in this age of interdependence and interconnectivity. The government of Federal Republic of Somalia warmly welcomes this year's theme of the General Assembly, which reminds us all on the importance to double our efforts through greater international cooperation to ensure we as a nation individually achieve the sustainable development goals of reducing poverty, improving the quality of education, addressing the adverse effects of climate change, and promoting partnership and inclusivity in all our actions at home. Partnership in all their forms are a must. We are to overcome the greatest common challenges of our time, including security, poverty, climate change, and sustainability. In this globalized world, no nation, no matter how well strong or prepared, can individually stand alone against the tide of global challenges which require common action and coordinated multilateral responses. We must strive to create the condition for individual fulfillment and common prosperity in line with the vision of sustainable development goals. I'm grateful to be here with our valuable partners, of whom many are represented in this great assembly today, for the constructive role they are playing in Somalia's successful journey to full recovery from a very difficult past. We are also grateful for the role the United Nations has and continue to play in Somalia's development journey on the ground. We are committed to working with the United Nations to advance our inclusive national development. barwaaqo iyada oo la raacayo yoolalka xalalka waara mudana madaxweyne waxaan ku faraxsanahay inaan halkan la joogo saaxiibo qiimo leh kuwa badan oo kamid ahna ay maanta halkan ku sugan yihiin waxaan uga mahadcelinaynaa doorka togan ee ay ka qaadanayso socdaalka guuleystay ee Soomaaliya sida buuxda ay uga baxayso tagtadii adkeyd waxaan sidoo kale qaramada midoobay uga abaalhaynaa doorka joogtada ah ee ay ka qaadanayso horumarka Soomaaliya ay ku tallaabsanayso waxaanu sii wadaynaa in aanu qaramada midoobay kala shaqeyno meelmarinta iyo hirgelinta ajandayaasha horumarka qaramada midoobay ee loo dhan yahay dhabaantii Soomaaliya waxa tusaale fiican ay u tahay muhiimadda guusha hanaanka caalamiga ah ee adduunka maadaama wax badan ay ka dheeftay taageeradii qaramada midoobay ee wadamada xubnaha ka ah dhabada dib u soo celinta iyo dib u soo kabashada Soomaaliya ee hormuudka ay ka yihiin shacabka Soomaaliyeed ee askaysiga badan ee dawladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed iyo dawladdu waxay ahayd mid aad u dheer haddaba indhaha lagama qarsan karo lagamana aamusi karo sida aanu uga xunnahay sinaan la'aanta sii kordhaysay iyo saboolnimada iyo qoqobka ka dhashay caro adeegaynta globalizationka oo aan cadaaladdaasina ayna ahayn mid adduunka mid ku sii baahaysa waqtigan shaki la'aan waxaa si wada jir ah aanu ugu baahannahay inaan hawlgalno haddii aan doonayno in la dardargeliyo dadaalada caalamiga ah ee ku aadan nabadgelyada adduunka ciribtirka saboolnimada waxbarasho tayo leh wax ka qabashada cimilada iyo arrimaha kale ee arrintaa ku saabsan sidii lagu go'aansaday shirkii 2015 mudana madaxweynaha Soomaaliya sidoo kale waxa door muhiim ah ay ka ciyaaraysaa horumarinta bulsho dhaqaale ee geeska Afrika waxaanu ku kalsoonahay
in iskaashiga u dhaxeeya dalalka geeska Afrika ay doonayaan horumar dhaqaale inay wada gaaraan xasilooni siyaasadeed isku xirnaanta bulsho iyo dhaqan iyo tan ugu muhiimsan oo ah iskaashi dhinaca ammaanka ah oo u dhaxeeya dalalka geeska Afrika gobolka geeska Afrika waxa ka jira fursado aad u fara badan oo koboc iyo horumar dhaqaale oo ay dadkiisu ay ka faa'iideysan karaan haddii ay aanu sii xoojino xiriirka siyaasadeed ee bulshada Soomaaliyeed iyo xiriirka dhaqaale ee u dhaxeeya dalalkeena iyo saaxiibada caalamka dalalka geeska Afrika kaligood kuma aha dadaalada ay ku jiraan arintaas dawladda federaalka ee Soomaaliya waxa ay ku howlan tahay qaaradda dhexdeeda we owe much to Kenya for their steadfast support for Somali's people over the years Soomaaliya iyo Kenya waa laba dal oo wadan madaris ah isla markaasina leh xeebta badweynta India ku teedsan isla markaana la xiriir saaxiibtinimo oo nabadeed abaal ayaanu uga haynaa dawladda Kenya taageeradii hagar la'aaneed ay sanado badan la garab taagneed shacabka Soomaaliyeed walow xiriirka guud ahaan uu fiican yahay haddana xuduudeena dhanka badda ah wali lama jaangoynin taas ayaana sal u ah isfahmiwaaga u dhaxeeya labada dal ee walaalaha ah wada hadaladii laba geesoodka ahaa heshiis waa lagu gaari waayay si marka loo helo xal nabadeed oo cadaalad ah sanadkii 2014 Soomaaliya iyada oo raacaysa sharciga caalamiga ah ayay bilowday in ay dacwadan horgeyso maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda si cadaaladda hay'adaha sharci ee ugu sareeya qaramada midoobay maadaama ay tahay waxaanu ku faraxsanahay in maxkamaddu ay cadeysay in sharciyad iyo awoodba ay u leedahay in ay ka garnaqdo khilaafkan isla markaasina ay dhageysato ugu dambeynteena kiiskan ay u qondaysay toddobaadka ugu horeeya bisha November Soomaaliya maadaama ay tahay xubin ka tirsan qaramada midoobay ayna qayb ka tahay una hoggaansan tahay sharciga maxkamadda waxay ka go'an inay ka dhursugto dhamaadka hanaankaas halka garsoorka Soomaaliya loogu raadinayo muranka Soomaaliya waxay ballan qaadaysaa inay hoggaansami doonto xukunkaas kama dambeynta ah ee maxkamadda inay aqbasho xadka ay maxkamaddu jaangoyso maadaama arintu ay tahay mid la xiriirta sharciga caalamiga ah xukunka maxkamaddu waxa sidoo kale uu qabanaya wadanka Kenya waxaanu ku kalsoonahay marka xukunkan la soo saaro in la jaangoyo xuduudda xalna loo heli doono khilaafka muddada dheer soo jiitamay Mr. President, I would like to further to report that at the margin of the 74th United Nations General Assembly in New York mudane madaxweyne waxa sidoo kale aan jeclahay in aan idin la wadaago in habeenkii talaadada 24 September 2019 madaxweynaha Masar mudane Abdel Fattah al-Sisi sidoo kale na ah gudoomiyaha midowga Afrika ee hadda uu soo qaban qaabiyay isla markaana shir gudoomiyay kulan barbar socday shirweynaha guud ee qaramada midoobay oo ka dhacay New York oo u dhaxeeyay aniga iyo madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta kulankaasi oo ahaa mid midadhal ah waxaanu isku raacnay in dib loo soo celiyo xiriirkii walaaltinimo ee wanaagsanaa lana xoojiyo iskaashiga diblomaasiyadeed iyo midka siyaasadeed waxa intaas dheer in khilaafka badda ee u dhaxeeya labada dalba loo daayo maxkamadda caalamiga ah si ay u xaliso Soomaaliya waxa ka go'an in xiriir fiican ay la lahaato Kenya iyo dhammaan dalalka gobolka mudane madaxweyne dawladda Soomaaliya waxa ka go'an ajandaheeda dawlad dhiska waxaana ilaa iyo hadda aan guula ka gaarnay xoojinta siyaasadda loo dhan yahay xoojinta dimuqraadiyadda iyo adkeynta hay'adaha qaran ee dib u dhiska iyo udub dhaxaadka u ah in la helo bulsho xoogan waxaanu idin la wadaagayaa in dawlad goboleedyada qaarkood ay ka qabsoomeen doorashooyin taas oo hordhac u ah doorashooyin heer qaran ee baarlamaan iyo madaxtinimo oo la qorsheeyay in la qabto 2021 waxaana naga go'an in aan fududeyno in guul laga gaaro arintaas iyada oo la marayo sharciga doorashooyinka oo ah mid loo dhan yahay diiwaangelinta codbixiyaasha bulshada in lagu wacyigeliyo muhiimadda siyaasadda loo dhan yahay ay u leedahay horumarka dalka marka la fiiriyo waxaa caddaanaysa in Soomaaliya ay tusaale wanaagsan oo taariikhi ah u tahay dib u habeynta iyo adkeysiga iyo horumarka oo ay soo kabashada ay bulshada Soomaaliyeed hormuudka ka tahay wada hadalladeena heer qaran ee hadda waxa diiradda lagu saaraa xaqiijinta siyaasad loo dhan yahay
tayeynta adeegyada dawladda dib u habeynta maaliyadda dhaqaale kobcinta dhaqaalaha dawlad wanaagga sare u qaadista iskaashiga heer gobol iyo sidii ugu dambeyn looga guuleysan lahaa baadigoobka sunta looga guuleysan lahaa haraadiga sunta argagixisada caalamiga ah inaga oo kaashanayna saaxiibadeena caalamiga ah ee guda iyo dibadda waxaan sidoo kale hubaa in aan aad iyo aad noogu raaci doontaan wadahadalladan loo dhan yahay in ay buddhig u noqon doonaan in Soomaaliya ay gaarto horumar waara iyo barwaaqo guud ahaan ay gaaraan dalalka gobolka iyo kuwa caalamiga ah si kastaba marka laga yimaado guulaha la taaban karo haddana dib u soo kabashada buuxda ee Soomaaliya waxa horgudban caqabado aad u fara badan dowladda federaalka ee Soomaaliya laga bilaabo markii aan xafiiska imid waxa aan aad xoog u saarnay qarashaad badan aan ku bixinay amniga maxaa yeelay waxa ku xiran dhammaan arrimaha kale sida tirtirida saboolnimada waxbarasho tayo leh in la helo wax ka qabashada cimilada iyo wadajirka annaga oo kaashanayna saaxiibadeena caalamiga ah ayaan si joogto ah waxaan uga shaqeynaynay tirtirinta argagixisada xagjirka iyo howlgalladooda Soomaaliya arintan ma ahayn mid fudud sababtoo ah al-shabaab waxay adeegsanayaan taktikooyin cunfi iyo gacan ka hadal iyo fulaynimo ku astaysan sida qarxinta muwaadiniinta iyo aan waxba galabsanin iyo ganacsiyada gaarka loo leeyahay si kastaba marka la eego istiraatiijiyadda guud ee xagjirnimada lagaga badbaadinayo dadka qaybta ka ah howlgallada military aan ku guuleystay Soomaaliya waxa aan ka qabsanay deegaano hor leh al-shabaab waxaan ku guuleysanay xoojinta awoodda ciidanka qaranka sida waxaan ku kalsoonahay in dadaalada wadajirka ah ee aan la leenahay AMISOM iyo saaxiibadeena caalamku ay miro dhalayaan taasi oo faa'iido ay ugu jirto Soomaaliya shacabkeena iyo sidoo kale xasiloonida gobolka waxaan dhismihiisa wadnaa ciidan aad u xoog badan oo fiican si wanaagsan loo tababaray sidoo kalena hay'adaha ammaanka ee dubdhaxaadka u ah wadanka ayaanu aad uga shaqeynaynaa sidii loo dhisi lahaa ilaalinta xuquuqda bini'aadamka kuwaasi oo mas'uuliyiinta Soomaaliya mas'uuliyadda amniga Soomaaliya la wareegi doona dawladdeenu iyada oo kaashanaysa AMISOM iyo saaxiibadeeda kale ee caalamka waxa si xoog leh ay uga shaqeynaysaa in yoolkaasi la gaaro iyada oo la raacayo qorshaha amniga qaranka halkan marka la joogo waxaan rabaa in aan u mahadceliyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliya dumar iyo ragba dhammaantood dalalka ciidamada ugu daaqay Soomaaliya iyo dhammaan saaxiibada caalamka siyaabo kala duwan Soomaaliya uga caawiyay sidii ay u soo kaban lahayd waxa xusid mudan in sinaba aanay u sahlanayn dib u habeynta ballaaran ee aanu ka wadno dadaalada aanu naga go'an ee aan dib ugu soo celinayno waxaan hadda diiwaan gelinay dhammaan ciidanka qalabka sida sidoo kale waxaan dhawaantan soo gabagabaynay baaris lagu wado guud ahaan hay'adaha amniga dalka diiwaan gelinta ciidanka waxay dawladdu fududeysay in ay meesha ka saarto ciidankii been abuurka ahaa ee aan jirin si ay u qiimeyso diyaar garowga dhinaca howlgallada ciidamada waxa sidoo kale inoo suurta gashay inaanu helno dhaqaale aan lagu bixin jiray meelo kale si loo adkeeyo amniga dalka Soomaaliya waxaan ku qanacsanahay in dib u habeynta miro dhalka ah ammaanka Soomaaliya uu furo u noqon doono inaanu helno hanaan amni oo la isku halayn karo isla markaana lagu ilaalinayo badqabka iyo horumarka ummadda Soomaaliyeed mudane madaxweyne dhab ahaantii waxbarashada tayada leh waxa ay xoreynaysaa awood siinaysaa rajo u abuuraysaa sidoo kale daaha ka faydaysaa riyooyinka iyo himilooyinka hal abuurka ku aadan taas waxay si keenaysaa inaan dhammaan behelno caalam intan ka sii wanaagsan dhammaan dadaalada waxbarasho iyo guud ahaan dadaalada horumarineed meel kasta oo adduunka ka mid ah waxa budlig ay u yihiin loogana dhigaa waxbarashada iyadoo la taageero heer qaran iyo heer caalami ah loo raadinayo astaan muhiim ah oo muujinaysa in dib u kabashada Soomaaliya ayaa waxa ay tahay baahsanaanta iyo adeegyada waxbarashada dawladda iyo kuwa xarumaha gaarka loo leeyahay ay bixiyaan oo dhammaan heerarka kala duwan ee waxbarasho waxa sidoo kale taas ka buuxda waxa si buuxda aan sidoo kale u fahamsanahay baahida loo qabo in la dhiirigeliyo lana taageero hanaanka iskaashi ee dawladda iyo xarumaha gaarka loo leeyahay ee ku salaysan adeegyada waxbarasho iyadoo ay dawladda federaalka ee Soomaaliya door kormeer oo kaliya ku leedahay marka laga yimaado tagtadii adkeed ee Soomaaliya ay soo martay ujeedadooyinkeena waxbarashada ee muhiimka ah dawladda Soomaaliya aanu u leedahay waxa ka mid ah
hanaanka iyo qaabka iyo maareynta iyo waxbarasho tayo leh tani waxa ay muhiimad gaar ah u leedahay jiilasheena yaryar si ay ula jaan qaadaan dhaqaalaha caalamka ee cusub isla markaasina ay uga faa'iideystaan waxa ay ku biirinayaan yoolalka horumarka waara ee 2030 marka la fiiriyo muhiimadda waxbarashada tayada leh ay u leedahay geedi socodka nabadeynta iyo dawlad dhiska iyo guud ahaan horumarka dawladdeenu waxa ay bilowday dib u habeyn baaxad leh oo ay ujeedkiisu tahay in la baahiyo helitaanka waxbarasho carruurteenna bulshada la hakraday dadka baahiyaha gaarka ah qaba gabdho iyo wiilalba waxaan si cad xooga u saaraynaa in waxbarashada dhammaan ardayda gaar ahaana fasallada hore sidoo kale waxaa naga go'an in aanu kordhino tirada dadka waxbarashada isu diiwaan gelinaya iyo inaan waxbarashada ku salayno fursadaha suuqa si loo kobciyo dhaqaalaha loona abuuro shaqooyin aad loogu baahan yahay taasi oo keenaysa kalsooni in loo abuuro shacabka waxaa cusub mudan in dowladda Soomaaliya ay ku howlan tahay diyaarinta manhaj qaran oo tayo leh isla markaasina loo dhan yahay iyadoo taasina ay barbar socoto dayactir dugsiyadii hore ee dowladda in aanu abuurno dugsiyo farsamo oo lagu barto sidoo kalena aanu ku talagalnay inaanu sameeyno macallimiinta tayintooda iyo maamulayaasha dugsiyada iyo jiilalka soo socda sanadkii shanaad Soomaaliya waxay ku guuleysatay inay qaado imtixaanaadkii heer qaran arday aad badan oo ay ku mid yihiin kuwa baahiyaha gaarka ah qaba gaar ahaan kuwa aragala ayaa ka qayb galay waana ay ku guuleysteen waxaan ku faraxsanahay dhammaantood waxaanuna la shaqeynaynaa oo aanu wadaynaa dadaaladeenna aanu fursadaha ku siinayno fursadahan uga abuurayno waxbarasho shaqaalaysiinta inaga oo dejinayna siyaasado waxtar u leh abuurayana iskaashi aad u xoogan diyaarinayna goobo laga heli karo waxbarasho kalena u abuurayna dhammaan dadka Soomaaliyeed si aanu u tayino waxbarashada iyo guud ahaan waxbarashadeena iyo guud ahaan caalamka waa inaanu dhammaanteenba aanu iswidaarsano tijaabooyin muhiim ah isla markaana siyaasadaha miro dhalka ah isla markaana aanu abuurnaa dabarkii isku xirayay waxbarashada fursadaha nabadgelyada ammaanka iyo horumarka caalamka mudane madaxweyne Soomaaliya waxa ay ka go'an in ay wax ka qabato xaaladda ay ku sugan yihiin deegaanada iyo dalkeena dhinaca deegaanka iyo in sare ay u qaado adkaysiga bulshada iyo jiilka hadda iyo kuwa soo socda ee Soomaaliya waxa ay qaaday tallaabooyin aad u waaweyn iyadoo oo hay'adda maareynta dhinaca deegaanka ay jihaynayso inay sameeyeen isbeddello heer qaran tusaale ahaan migleelida waaxda deegaanka ee isbeddelada cimilada ee xafiiska ra'iisul wasaaruhu waa tallaabo dhinaca saxda ah loo qaaday waxaana aan ku kalsoonahay in waaxdaasi ay waxtar hogaamin leedahay ayna hogaamin doonto dhaqaajinta iyo dhaqangelinta shuruucda iyo siyaasadaha deegaanka tani waxa ay caddayn u tahay in ay sida ay nooga go'an tahay in aanu wax ka qabanno cimilada loona helo deegaan fiican oo nadiif ah isla markaasina barwaaqo ah run ahaantii isbeddelada cimilada waa halis ku soo kordhaysa caalamka masiibooyinka deegaanka Soomaaliyana maadaama ay tahay dalka ugu xeebta dheer qaaradda Afrika waxa ay wajahaysaa saameyn sii kordhaysa oo dhinaca badda ah heer kulka taasi oo siyaadisay xaalufinta deegaanka abaartii dhacday 2017 Soomaaliya waxa ay saameyn weyn ku yeelatay deegaanka dhaqaalaha iyo kheyraadkii dabiiciga ah ee dalka waxaana dhaawac weyn uu soo gaaray 600 qasaare gaaray 600 oo milyan oo dollarka Mareykanka ah oo soo gaaray dabeecada taas waxaa sidoo kale hoos dhac uu ku yimid wax soo saarkii deegaanka waxaana taas ay caddayn u tahay waqti adag in uu ku soo fool leeyahay dhaqaalaha Soomaaliya ee dhinaca xoolaha maxaa yeelay ku dhawaad 93% kheyraadkii dhinaca dhaqashada xoolaha ee gobollo ka mid ah Soomaaliya waxa ay arintaas saameyn ku yeelatay tan ayaa saameyn weyn ku yeelatay ilaa iyo 6.2 milyan oo qof oo Soomaali ah oo u dhiganta 60% guud ahaan dadweynaha Soomaaliyeed ee ku tiirsan xoolaha sababta awgeed waxa dhici karta in dib u kabashada dhaqaalaha Soomaaliya waqti qaato maxaa yeelay waxa tani ay keenaysaa masiibooyin dhinaca cimilada ah oo arintaas keena waxyaabaha keena nabad guurka iyo nuglaanta Soomaaliya waxa ka mid ah inay cakiran yihiin inay badan yihiin waxaana ay cakiran yihiin sidaas daraadeed waxaan u
baahannahay in la helo xalal waqti fog ah oo dhammaystiran qorshaha horumarinta qaranka iyo dib u soo kabashada Soomaaliya lagu dhaqangelinayo casharada aanu ka baranay khibraddeennii waxa ay tilmaamayaan in si degdeg ah loogu baahan yahay in wax laga qabto deegaanka lana xalliyo dhaawaca ballaaran ee deegaanka ka soo gaaray halista mustaqbalka aanu wadaagno mudane madaxweyne aan ku muujiyo in aan si buuxda ay nooga go'an tahay in dowladda Soomaaliya natiijooyinkii ka soo baxay heshiiskii Paris sidoo kalena heshiisyadii deegaanka la xiriiray kuwaasi oo ilaalinaya dardargelinta mustaqbalka anaga oo naga wada dhaxeeya halkan marka la joogo waxaan si adag ugu baaqayaa dhaqangelinta iyo hirgelinta go'aanadii golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee tirsigiisu ahaa 751 kaas oo dhammaan dalalka xubnaha ka ah ku waajibinaya in ay qaadaan dhammaan tallaabooyinka lagama maarmaanka u ah in laga hortago dhoofinta iyo soo dejinta dhuxusha toos ah iyo si dadban Soomaaliya tani oo kaliya ma badbaadinayso deegaanka balse waxa sidoo kale argagixisada ka joojinaysa dhaqaale ay ku tiirsan yihiin oo ka soo gali jiray dhoofinta dhuxusha mudane madaxweyne saboolnimadu waxa ay kamid tahay cudurrada ugu daran ee ilaa iyo hadda horgudban dowladda Soomaaliyana waxa ay si adag bulshadeeda ay uga la shaqeynaysaa ciribtir sidii loo heli lahaa dhisitaanka mustaqbal ifaya oo shacabka Soomaaliyeed uu helo iyo la dagaalanka faqriga waxaan hadda qarka aan u saaranahay in aan dhamaystirno qorshaha horumarinta qaranka ee sagaalaadkaasi oo hagi doona siyaasadda iyo habka la dagaalanka saboolnimada ee Soomaaliya hanaanka lagu diyaarinayo qorshaha horumarinta qaranku waxa uu ahaa mid loo dhan yahay oo sare u qaadaya xisaabtanka iyo daafurnaanta iyo mas'uuliyadda ee dhaqangelinta wadareed hanaanka lagu ciribtirayo saboolnimada waa mid fursado dhaqaale u abuuraya dadkeena Soomaaliyeed taas ayaana waxa ay aan sameynayna waxaanu ku hawlanahay in dib u habeyn aad u ballaaran oo miro dhal ah aanu ku sameeyno dhaqaalaha maaliyadeed ee dalka taasi oo hagaysa barnaamijka hay'adaha lacagta adduunka oo xaqiijinaya lagu xaqiijinayo deyn cafin horaanta sanadka soo socda sida hay'adda lacagta adduunka ay qabto guusha ilaa iyo hadda aanu gaarnay waa mid aad u weyn waqti yar gudihiis ayaa waxa inoo qabsoomay wax badan oo aanu ka shaqeynaynay oo aanu ku kordhinayno gudaha kala duwan hanaanka miisaaniyadda qaranka in aan nidaamino dhaqaaleena ka dhigno mid daahfuran oo transparency ah waxaana sidoo si dhow ula shaqeynaa saaxiibada caalamka iyo sidii aanu uga guuleysan lahayn deyn cafinta dadka Soomaaliyeed heedaha maaliyadeed ee adduunka ayaan si dhow ula shaqeynaynaa sidii Soomaaliya deynta looga cafin lahaa gaarista himilooyinka Soomaaliya waxay ogolaanaysaa inay hesho khayraad muhiim ah oo ku aadan oo loo baahan yahay oo kabaya dakhliga gudaha ee dhaqaalaha dib u habeynta dhaqaale ee Soomaaliya waxa garab socda dadaalada dowladda Soomaaliya ay kula dagaalamayso musuqmaasuqa kuwaas oo lagu bixinayo in dowladda Soomaaliya haddii ay doonayso inaanu cirib tirno saboolnimada inaga waxaa naga go'an shilin inaanan ku bixin dhinaca musuqmaasuqa si lamid ah waxaa mar walba aanu waqti badan ku bixinaynaa in aanan qarashka ugu badan ku bixino dowlad wanaaga qarashaadka dowladda taasi waxa suurta gelinaysaa in aanu ka hortagno musuqmaasuqa tani waxa ay sababta aan toddobaadkii la soo dhaafay u saxiixay sharciga la dagaalanka musuqmaasuqa ee dowladdu ay soo diyaarisay waxaa naga go'an in aan dhaqan gelino dadka Soomaaliyeedna iyadoo lagu danaynayo sidii looga hortagi lahaa musuqmaasuqa aan hadalkayga ku soo koobo aniga oo ku celinaya taageerada Soomaaliya ee ku aadan dadaalada caalamiga ah ee ciribtirka dhinaca saboolnimada waxbarashada tayalada iyo wax ka qabashada cimilada adduunka ee isku xirmay aan la wadaago fursadaha aan dhammaanteen ba ka wada shaqeyno sidii aan u gaari lahayn horumar iyo barwaaqo wada jir ah socdaalkan caalamiga ee ku aadan horumarka waara ee dunida presidente de la República Federal de Somalia por la declaración que acaba de formular. Ruego al representante musuqmaasuq waa wax isdaba marin daacad